ku soo dhawaada barnaamijka hindise waxaa qaybtan ku tartamaya ganacsiyada kale ah Sowtech Solution oo ay matalayso Adna Cabdi Xirsi, Somali Lab Code oo uu matalayo Axmed Maxamed Xasan, Muqdisho Team Protocol oo uu matalayo Cabdinaasir Cabduqaadir Saalax, Juba Company oo uu matalayo Adnaan Maxamuud Ibraahim, Korea Platform oo uu matalayo Maxamed Cabdullaahi, Art Supply Store oo ay matalayso Mirna Xasan Diriye. Hagaag inta aanan bilaabin tartanka aan barana guddiga garsooraya barnaamijka hindise. Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil waxaan ahay asaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Xadiid Industries Group. Xadiid mar bay ahayd fikrad, maantana waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horeeya ama ugu weyn dhinaca birta wax soo saarka dalkeena. Waxaan ka mid ahay garsoorayaasha hindise. Dhammaan tartamayaasha waxaan u rajaynayaa guul. magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf, waxaan ahay asaasaha Mira International Schools iyo Bulshakaab Clinic. hadda waxaan ahay madaxa waxbarashada IRS Hub iyo gudoomiyaha Cabdicaziz Youth Center. in ka badan 110 shirkadood baan 5 sano ugu dambeysay waxaan ka ahaa fikradahooda ganacsi garsoore iyo qiimeeye. magacaygu waa Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan, waxaan ahay asaasaha iyo maamulka xarunta Kaafiya Center. waxay u istaagtay inay wax badan ka bedesho dhanka shaqo la'aanta magaalada iyo qoysaska Soomaaliyeed guud ahaan. waxaa jirto oraah dahabi ah oo uu leeyahay Robert Collin oo leh guushu waxay ka imaataa isku darka hoola yaryar iyo joogteentooda. magacayga waa Amira Aweys Abukar, waxaan ahaa milkiilaha Amira Lab and Pharma. waxaa kaloo ahay online coach dhanka nutrition-ka. marka ahaa ardayga waxaa jiray riyooyin aan lahaa taasoo maanta miro dhashay. waxaa jirta oraah dahabi ah oo oranaysa guul walba waxa ay ka bilaabataa riyo, waxa ayna ku dhamaataa fulin. ka rumey riyadaada inta ay ruuxda kugu jirto, taa oo mar walba igu dhiirigelin jirtay ka rumeynta riyooyinkayga. magacaygu waa Mirna Xasan Diriye. Kalmanigayga magaciisana waxa weeye Art Supply Store. Kalmanigayga waxaan doonayaa inuu noqdo kalmaniga ugu weyn Muqdisho ee laga heli karo qalab kaste oo u baahdo qofka farshaxanka. waxaan u rajaynayaa inuu insha Allah. magacaygu waa Mirna Xasan Diriye, waxaan ku tartamayaa businesskayga oo ah Art Supply Store. haddaan idii sheego businesska fikradiisa waxay ku timi markii hore dhib aniga iga qabsatay awgeed, maadaama aan ahay qof artistiya. waxay markii ugu horeysan Muqdisho imi 19kii waxaan waayay meel aan alaabta ka soo iibsado aan u baahanahay. dhibaatooyinka markaan wadaan u gudbo dhibaatada ugu weyneed ay ku qabsatay taas ahayd, waxaan iga qaadatay waqti badan inaan daydayo meel aan ka iibsado alaabta. xalkeedu wuxuu noqday inaan sameeyo meherad laga heli karo alaabtii artistka oo dhammaystiran. qof kasta farshaxana ama arday architecture engineering ka barta oo ka heli kara alaabtii. haddaan u gudbo traction cake waxa weeye mistake markaan sameynayay presentationka ugiga sameeyo. waxaan doonayaa bishii inaan sameeyo lacag soo xareeyo 2,000 noqonaysa. 2,000 markaan expensive ka jaro revenue-ga ii soo haray waxa weeye 9,040. fursad weyn oo weeye suuqa ka jirta maadaama aan jirin maxay tala meel alaabta u dhammaystiran. maadaama markaad u baahatid artistka waxaad ku sameynaysid wax lagu tilmaamaya meelaha stationery-yada waxaad ka helaysaa qalabkeeda loogu talagalay iskuulada iyo waxbarashada. competitive advantage-kayga waxaa ka mid ah meelaha ila tartamaya bin caarif oo kale. alaabta bin caarif ay iibiso maaha alaab dhammaystiran. alaabta barwood ka helaysaa barka kalena waxay noqonaysaa meel kale ka duwanatid. waxaan kaga duwanaanayaa waxay noqonaysaa inaan focuska saaro alaabta cusub ee suuqa markaa imanaysa in istiraatiijiyadeeda ay noqoto. kalen kaga duwanay waxay noqonaysaa differentiation-ka aan sameynayo
alaabtii oo quality leh oon meeshii anuu shirkadda aan ka doonanayo alaabtii oo dhammaystirana ay ii keenayso tiimkayga waa aniga iyo wiilkan oo waqti badan geliyey siduu iga caawiyo aan u noqdo maxay tolay shirkad jirta lacagtan u baahanahay waxaa weeye 7,000 7,000 oo ku kacaya materialskan u baahanahay oo dhammaystiran kiradii qalabayntii meesha iyo office supply-giyadii alaabtii aan u baahanahay oo dhammaystiran saan u keensado business confidence waxaa weeye customer segment-kiisa waxaa weeye farshaxanka ardayda dhammaysata iyo dhigata architecture-ka iyo qof kastoo xifrad u leh wixii uu doonaya inuu samaysto customer relationship-kan doonaya inaan sameeyo waxaa weeye inaan qofkii ii imanaya aan ka warhayo alaabta uu doonaya inaan garanayo wixii ugu baahan yahay haddii uu sameeyo uu farshaxankiisu ku saamsan yahay samaynta sawirqaadsawaynta water clerkska loo isticmaalo commission key resource-kayga waxaa weeye website-yada iyo alaabta oo maxay tolay u leeyahay knowledge badan aan iibinayo artist waa maxay haddaba artist waxa weeye farshaxan qof kasta wuxuu leeyahay hibo ilaahay u siiyey wixii maskaxdiisa ku jira inuu sameeyo wixii maskaxdiisa ku jira markuu doonaya inuu sameeyo ma jirto meel alaabtii uu ka soo iibsanayo markaas fikradeedu waa sidaas waana mahadsanti waa mahadsan tahay su-aashaan ku weydiinayo waxaa weeye market opportunity-gaaga oo fursadda suuqa taalla iyo inaad faahfaahin kasii bixisa fursadda suuqa taalla horta waa fursad weyn meeshaan doonaya inaan furto waxaa weeye meel alaabta artistka unit u ah imka bincaarif markaad tegtid alaabyo badan baad ka helaysaa qaybo badan buu leeyahay ani qaybteed waxay noqonaysaa ku koobnaanaysaa alaabta farshaxanka oo dhammaystiran inaad ka hesho muqdisho marka gudaheeda la joogana meel alaabtii oo dhammaystiran aad ka helaysaa ma jirto adeega aad qabanaysidna waa badeecooyinkaas artistka keliya inaad gedid laakiin maa sawirtid iyo kuma jirto waa store maya sawirka anu waxaan qaabilsanahay waxaan samaystaa maadaama gabadh ahay waxaan dharkayga markaan doonay inaan samaysto uma geysto maxay tole qof ii sameynaya designkan doonay ani designka maskaxdeeda aan kala imaado intaan sawiraan u geeyo qofkii ii talayaan idhahdaa designkaasaan u baahan marka aniga designka marka laga imaado waxa weeye alaabtii store alaabtii qofkii uu imanayo alaabtii uu ka iibsanayo bismillah su-aasheeda waxay tahay mirna xaggee alaabta ka keenaysaan alaabta waxaa jiro 2 shirkadood oo imika shirkadan iyada la leeyahay xidhiidh oo waxaa la yidhaahdaa Mount Martel iyo Artist Supply kuwaas markaan u sheegay inaan doonayn store inaan furto on wholesaler waa dibadda ka keenaysaan dalka dibadiisa laga keenayaa okay noocyada khadad miyaa ku jira mise waa qalab maya way dhammaystiray khadkii kalarkii markariskii bensaliskii u khaaska ay lagu imka markaad doonaysid wax sawirtid qalin beesal caadi ama biiro caadi uma qaadanaysid qalin baa jira kuu khaasa haddii aad architecture qalimaan khaasa isticmaal haddii aad artist tahayna qalimaan khaasa isticmaal sidoo kale injineeradaad kusoo dartay kanfasyadii iyo mastaradihii iyo waxyaabay u baahnayeen miyaad sidoo kale miyaad iibin doontaan maya engineerinka markaan kusoo daray waxaa jirto kalarka imika mastaradihii wixii sectionaryada markuu tago uu helay laakiin qalimaan baa jira aad ku sameynaysid ood ku sawiraysid qalimaantii meeshii uu ka heli lahaa bay noqonaysaa insha allah ugu dambeyn xaashiyihii miyuu helayaa ha dhammaystiran أنا واحد سؤال مقوي ما سنتها بسم الله مرنا سؤالك ويدينا وحياتها ويلك كلا كوغل جرى برنامج كما تيم كابد شقيني سنة كمدي هاي مسا قف عاوي أولي واي يعني عامل تيم كي يقول حوي accounting finance كوي قابل سنة إن شاء الله أوكي وما سنتها بيدي كامل شكرا بسم الله مقاعد وعدنا عبد القيسي كمبني مقعد وحلا سوتك IT Solution Somali ومثلنا برنشيب كمبني وحيابها وقبلها وحاكمة إنه فيديو برودكشن فيديو ديزاين لبضو وصوصارة sidoo kale waxyaabaha uu qabanaya e-learning platform oo multidisciplinary ah multidisciplinary waxaa la jeedaa inuu koorsooyin kala gudbisan ardayda u soo gudbinaya ayagoo macallimiin luqadooda hore ugu soo gudbinayaan waxyaabaha kale uu qabanaya waxaa waaye video design and video software development labadaba inaan qabanayno waxyaabaha kale aan sameynayna waxay tahay IT solution oo consultant ardayda aan siinayno labadaba wax xalinayna loo repair iyo troubleshoot labadaba ku sameynayno
mustaqbalka waxyaabaha aan rajeynayno waxaa kamid ah kambanigan inaan sii horumarino aragtidaana aysan mid halkan ku jirta aysan inaan heer wadamo gobolada dhan aysan wadanka sii gaarsiino. bismillaah magacaygu waa Adna Cabdi Xirsi waxaan ku tartamayaa Sowtech IT Solution horta anaga introductionkeena waxaan ahay group gabdho oo ka kooban 5 gabdhood groupkaasoo bartay culumta tiknoolajiyada information technology kuna wax bartay wadanka Soomaaliya. problemka aan xalinayno waxay tahay laba problem aan xalinayna. problemka koowaad waxay tahay gap ka jiro gender gap ka jiro kuliyadan oo gabdhuhu aysan kuliyada ku barnay hadii ay bartaane ay shaqaaleysiinteedo kale ay yartahay. midooda kale gabdhihii oo aaminsanay xirfadan inaysan ka soo dhex muuqan karin oo kale solutionka aan hayno waxay tahay gap genderkaas elina meesha ka saarno. midda kale sababaha aan ka saarayno midda kale waxay tahay inaan sameyno studio ballaaran oo video production ah oo lagu soo saaro fiidiyoyada. midda kale inaan fiidiyogaas waxyaabaha naga caawinaya waxay tahay multidisciplinary plat e-learning inaan sameyno oo dadka ka caawinayo waxyaaba program basedkii meeshii ahaa qofka caafimaad computer uu base ku ahaa multidisciplinary isku noqdo oo korso kasta uu ka heli karo. web design and web development oo kale inaan bixinayo ICT consultant inaan ardaydiisino iyo dadkii iyo businessyada soo koraayo kale consultant. interactionkeena waxaa weeye horta waxaan haysanaa dad energetic ah group oo noo shaqeynayo potential customerka bilaha koowaad aan filanayno waxaa waaye 20 revenue aan ka filanayno waxaa waaye 200 bishii koowaad oo kale ah. markaas afarta bilood oo ugu horeyso waxaan filanaynaa 1200 taasoo barrier-kii noo noqonaysa 3,000 iyo balaas. next market opportunity-ga suuqa ka furan waxay tahay haddii aan sameyno stuudiyogahaas oo kale inuu video production ballaaran aan kusoo saari karno waxay naga caawinaysaa marka inaan xiriir dhow la yeelano macaahidda magaalada ka jirto oo kale iyo barayaasha khibradda fiican leh si fiidiyoyada aan ga soo duubno kabacdina ardayda aan u gudbino. fursada kale oo opportunity-ga kale aan haysano waxay tahay in aan e-learning platform sameyno isagoo website isagoo mobile application labadiiba ah. competitive way jiraan laakiin competitive waxyaabaha aga bedelaan waxay tahay anagoo laba view ka fiirinayno dad oo video production way jiraan dad program based way jiraan laakiin labadiiba inaan hal meel ku keeno oo program based aan ka guurno oo multidisciplinary e-learning ka dhigno midda kalena cost effective inaan ka dhigno. next teamkeena anaa madaxa oo ah chief oo ah Cafaaf Cali Xasan video editorka noo qaabilsan iyo Muxiidina web developerka hardware technicianka noo qaabilsan sound engineering. next fundraising-ka waxaan u kala qaadaynaa labo bir operational cost iyo waxaan kala qaadaynaa cost running per month bisha ugu horeyso kale anagoo fiirinayna qarashaadka nagu baxaayo 5263 waayo oo bir operationalka inaan barnaamijkan aragtidan dhaqaajino. per month-ga u koowaadna 1530 aan ugu baxayso totalka lacagta markaas nagu baxayso waxay noqonaysaa 6763. business compass-keena target ayaa inoo ah ardayda undergraduate-ka ah ardayda u baahan xirfadooda inay sare u qaadaan. waxaa kaloo target noo ah student-iga raba imtixaanaadka inay diyaariyaan ama local ha noqdo ama imtixaan professional ha noqdo. waxyaabaha marka dadka anagu nagu soo doonanayaan ama kaga duwanayaan dad kale waxaa ka mid ah inaan xiriir dhow la yeelano macaahidda iyo barayaasha khibradda leh oo fiidiyoyada aan ka qabano kabacdina u gudbino. waxaa kaloo nooga duwanaya cost effective inaan noqono ardayda inaan convenient ka dhigno ay ku qanacsanaadaan website iyo workplace labadaba inay ka heli karaan portal ah discount inaan u sameyno. janaalada waxaan ku gudbin doonaa online waaye social media oo kale partnership iyo word labadaba customer meelaha nagala soo xiriin karaan online-ka call centerska social mediaha iyo direct visit-ka. revenue meelaha aan ka heli doono waxaa waye course aan ka heli doonaa video production-ka banaalka iyo web developerska. resource-ka aan haysana waxay tahay dadka nala shaqeynayo dadka professionalka oo course-ka noo diyaarin doona licensiga hardware and software-ska. key activity waxay noo noqonaysaa graphic design iyo video production inaan soo saarno multidisciplinary online platform inaan sameyno IT consultant iyo web development. partner waxaa noo noqonaya professional lecturerska local bankiga e-payment-iga iyo payment statement-iga. course structure-keena wuxuu ku baxayaa summary-gana wuxuu ku bixi doonaa license software-ska aan soo sameynayno technicalka training and development aan sameynayno rent expense-iga salary-ga. summary-gana waxaana team creativity oo barnaamijkan khibrad fiican. bismillah waa mahadsan tahay Adna waxaa sheegtay inaad samayn doontaan casharada inaad soo duubi doontaan casharada duuban ee khadka ku jira ama YouTube-ka laga helo maxaa kaga duwan tihiin
waxaan aga duwanaanaynaa laba qaab waa ka fiirinaynaa hore dadka casharada soo duuba in casharadii intay soo duubaan soo geliyaan oo kale third party isticmaalaan oo qof usoo duuba kabacdi ay soo geliyaan bal annaga waxaan isku noqonaynaa cidda duubaysa inaan noqono cidda soo gelinaysa inaan noqono keliya wax naga baxa ay tahay macallimiintaas casharka soo gelinayso su-aashada labaad waxay tahay macallinka casharka duubaya ama lecturerka jaamacadda ka bixinaya maadaama aad faa'iido doontihiin maxaad isaga muxuu idinka faa'iidaya wuxuu naga faa'iidayaa macallinkii experience uu leeyahay ardaygii waxaa laga yaabaa ardayga jaamacadda markaas uu wax ku siinayo maahane arday kale inuu cilmigiisa u baahan yahay marka macallinkii faa'iida u ogolnahay oo cilmiga asagan uu haayan inuu ardayda u gudbiyo annaguna asagii faa'iida aan ku siinaa meeqaa siinaysan halka casharada diskaana u ogolnahay habba koorsada uu bixinayana ku xiran tahay qiimaha la siinaa way su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay waxaa tiri cost effective baan nahay taabal noo macinaysa cost effective waxaa ula jeedaa macnaha ardayda inay ku qancaan waxay ugu qancaan waxay tahay in koorsooyin ardayga isagoo culum kala gedisan barta tusaale hadda IT aa barta laakiin waxaan jeclahay oo kale inaan culum kala daraaseeyo haddaan multidisciplinary aan soo booqdo waxaan ka helayaa culumtaan daraaseynayay haddana haddaan koorso kale ka gato koorsada kale aan ka gadanayo waxay noqonaysaa discount in ardayga loo sameeyo koorsadiina imsad siinaysaan waxay ku xiran tahay haba ardayga qaabka loo ta ugu jaban iyo ta ugu qaalisan haba waxay ku xiran koorsada ugu qaalisan $10 $15 u dhaxaysa ta u jabanna koorsooyinka $7 ilaa $5 ugu yar mahadsantahay aadna aada u mahadsantahay waxaa raba inaan ku weydiiyo ICT consultation aa sheegtay ICT solution ma sameynaysiin ICT consultation waa bixinaynaa solution waa bixinaynaa maadaama team aan isku jirnay oo IT ah dhammaanteen aan nahay waxaa noo jooga team qaybta technicalka noo qaabilsan oo repair and troubleshooting labada sameeyo phase 1 keenoo kale waxaan sameynaynaa repair and troubleshooting laakiin qaab gadaal oo kale ardayda xataa laftigooda si ay kombiyuuteraadkooda ama deviceska ay haysan u cilad baxsadaan oo kale training aan ku siin karnaa aad waa mahadsan tahay yaa suuqa idin kula jira oo maaragtay computer aad u arkaysaan suuqa waa nagulooga jiraa oo dad badanoo suuqa nagula jira way jiraan laakiin isku dhinac kama taagnin tusaale ahaan oo kale way jiraan hadda dad bixiyo koorsooyin soo geliya laakiin program based waa sida hurbad oo kale waxay base ku tahay waxyaabaha teknolojiyada la xiriira macaahid kale way jiraan oo ayaguna program based laakiin anaga keena multidisciplinary waaye oo koorsooyin kala duwan aan soo gelinaynaa xagga video productionka markii loo fiiriyana kuwa waxaa jira third party leh laakiin anaga labadiiba anaga isku qabanayna marka shaqadiinu waa sida mock courses massive open online courses sida Udemy iyo Coursera oo kale inaad koorsooyin kala duwan gadataan oo aad soo daysaan koorsooyinkana macallinkii dhigaya aad commission iyo khidmad ka siisaan si fiican tusaale hadda Udemy oo kale luuqada waxay ku baxdaa ajaaniba laakiin anaga waxaan uga duwanaanahay xitaa in qofka luuqadiisa hooyo wax ku fahmi karo aad baa mahadsantahay maadaama taasi marka field aad u ballaaran tahay oo mock courseska dadka ka ganacsado educational IT companieska ah ma fiican tahay inaad soo koobtaan oo video productionka iyo solutionka iyo waxa kale taasi maadaama niche market ay tahay kaligeed ku ekaataan way wanaagsan tahay laakiin meesha waxaa jira marketka waxaan ka fiirinaynaa ardayga labadii fursadoodba inuu meesha ka heli karo tusaale haddaan meel isku qaasiya la macaahid kale oo meel qaasi way ku jiraan laakiin reasonka u dooranaa waxay tahay in ardayga video productionkiina annagoo aan u sameyno macallimiintiina ayagoo professionalkiila oo luuqadoodii ku hadlaayo oo in badan wax fahamsiin kara aan u keeno aan usoo gedino sidaas ardaygan uga faa'iidaysto xiriir kale ardayga u faa'iideyna waxay tahay ardaydii inuu arday kala gedisan oo gobole kala disan uu si fiican ku barto oo ay daraaseeyaan lana munaaqashadaan casharada dhexdooda aad baa mahadsantahay marka qalabka kaamirooyinka iyo waxaad haysataan idinka dhexdiina isaga faa'iideynaya ma ahane kuwa aad dad kale wax ugu sameynaysaan ma aha kuwa idinku aa casharkiina kusoo duubanaysaan kaliya wey casharka waa kusoo duubaynaa sidaasoo kalena haddana waxaan ku sameynaynaa inaan dadka shaqooyinka ugu qabano sida hadda waxaan qabanaynaa banaliska loogooyinaa kaloo qabanayna dadkan xataa videoga inaa video editing graphic designing company iyo video production company waa labadaba isku nahaa okay marka waa all in one haye adna waa mahadsan tahay marka programkiina only wuxuu ku shaqeynayaa as online ahaan as online okay waa mahadsan tahay waa mahadsantiin aad magacayga waxaa waaye axmed maxamed xasan asaasaha shirkadda Somali Lab Coats isbitaallo aad u fara badan oo ka shaqeeyaan kalkaaliyayaal shaybaaristayaal midwives iyo qaybo kala duwan oo bahda caafimaadka ah ayadoo saas inaan ognahay sidoo kale ay jiraan hay'ado caafimaad cilmi-baarayaal xagga caafimaadka iyo macadyo oo caafimaadka wax ka darso dhammaantood waxay u baahan yihiin lab coats so annaga waxaa rabnaa inaan daboolno
ama ay iibino lab coatskaas baahidaas dadka inaan ka daboolno kumanaan kun soomaalida ay haysato hadafkeena waxaa waaye inaan ku faafno ama aan gaarno waddanka oo dhan insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rajeynaynaa inaa ama hadafkeena ugu weyn u yahay inaa dharka soomaaliya ku tolno kadibna aan dibadda u dheefin insha allah bismillahi rahmaani rahiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacayga waxaa waaye axmed maxamed xasan kambanigeygan waxaa waaye Somali Lab Coats waxaan ku faraxsanahay mar kale inaan hal abuurkeyga halkan kusoo bandhigo slaidka xiga lab coat in asla fahanaa horta marka hore rabaa lab coat dadka inta badan caafimaad ka baxsan inay fahminaa laga yaabaa lab coat waxaa waaye shaarka caafimaadka oo dhakhaatiirta iyo shaybaadhisayaasha iyo bahda kala duwan ee caafimaadka ay xirtaan waaye oo caddaanka ah marka shirkaddeena waxay rabtaa inay iibiso dharkaas caddaanka ah ay rabtaa marka saa ognahanay muqdisho waxaa yacni ka jiro 50 jaamacadood oo tiro badan ama wax ka badan waxay bixiyaan kuliyadda caafimaadka waana kan ugu badan ay bixiyaan waxaa ka mid ah daawadii qaliinka ama medicineka shaybaarka nursing fayadhowrka public healthga dhalmadoo kale ama mudaafiska isbitaallo 30 ka badan oo aad u shaqeeya ku yaalo hay-ada caafimaad cilmibaarayaal dhakhaatiir dhammaantood ma haystaan meel gaar ee laabkoodka u doontaan suuq laabkoodka albaabka inta loo furo ay ka doonanayaan ma jiro waa jiraan kuwa ka agdhadhow waana sheegi doonaa insha allah waxaa dhacda sidoo kale qofka inuusan helin wax ku filan oo qancinayo xataa meel hadduu u doonto maxay xalinaysaa marka Somali Lab Coats waxay xalinaysaa baahidaas jirtay dabooleysaa sidoo kale ma jiri doono qof bahda caafimaad ka tirsan inuu ka walwalo hadda kadib inuu meelo u doonto lab coatka sidoo kale waxay heli doonaan dhar ku saleysan cabirkooda iyo dooqooda heli doonaan insha allah next tractionka kambaniga hadda la bilaabay soo waxaa filayno dadkana soo dalban karo ka filayno waxaa ku sii sheekayna 1000 qof wax ka badan retentionka ama wax noo soo laaban karo haddana marka la iibsan karo waxaa rajaynaa 1000 wax ka badan net promoter score waxaa rajaynaa dadka inay ku qancaan markaa su'aalo weydiino 9 barteen oo kale ugu yaraan at least 90 inay ku qancaan adeegeena revenue-geena ama waxa filan karna sanadka waxaa 13,000 grosskeena waxaa rajaynaynaa inuu kordho 40% wax ka badan opportunity-ga aad u badan yahay xataa haddii jiraan shirkado ka agdhow xataa ama iibiyaan in case ama hudheedoo kale weli kuma filna inay daboolaan baahidan saas darteed opportunity badanaa jiro sidoo kale waxaa jiro tirada bahda caafimaadka oo sanad kasta sii kororto sida isbitaalada oo shaqaale cusub qaato ama yacni jaamacado oo arday cusub oo caafimaad qabtaan sidoo kale laabkoodka baahi aadaa loo qabaa shirkadaha hadday jiraan ka agdhow ama shirkado noocaas oo kale xataa ma dabooli karaan soo mid saddexaad xataa waa loo baahan karaa okay next waxaan la tartamayo labadan shirkadood ayaa ka agdhow adeegeena laakiin si toos ma u bixiyaan intaa hadda magaalada ku arkay Somali Uniforms oo uniform inta badan diiradda saarto iskoolada iyo waxay diiradda saaraan iyo dharka qalinjibinta waxyaabahaas 2 iyo 3 shay ayaa u saaran laabkood oo dukaanka ah taylorna sameeyaa inta badan waxay tolaan sidoo kale Muqdisho Uniform ay jiraan sidoo kale ayagana taylorna sameeyaa kuwaasay la mid yihiin soo ayaga qaas ma ahan laabkoodka anaga maxaa ugu duwanahay anaga waxaan nahay specified for labcoat bisa qaas u nahay cost based sidoo kale anaga sidoo kale strategic location aan rajaynaa inaan ka furno kuwa waa bari ku yaalo oo jaamacadii isbitaal aan ku olinba inta badan soo ma soo gaari karaan macaamilka sidoo kale waxaa ugu duwanaanaa branding qofka inaan magaciisana u qorno loogada jaamacadiisa ama institutionkiisana inaan u saarno iyo delivery ah meesha hore inaan u geeno oo magaalada gudaheeda teamka anaa asaasa ka shirkadan partner waxaa leeyahay Cabdullaahi oo sidoo kale isbitaalka Tanaad asaasa ka ah iyo Cabdixaliim Sahal oo advisor noo ah sidoo kale ka tirsan maamulka isbitaalka Kalkaal next lacagta lagu bixi karto 4200 waaye productiga ugu horeeya waxaa ku iibinaa 3000 mashiinka wax ku barani ku sameeyna 500 waaye meesha ka arki kartaan kulay dabcan iyo marketinga advertisementiga waxaa rajaynaynaa ayadan inay 300 u qaadato okay next business canvas-ka key batteries-keena waxaa ka mid ah shirkada suppliers iyo kuwa cargo agencies oo adeega noo keenayo iyo waxaa waaye maxamed xasan axmed oo partnerka walaalkiis ah oo UK joogo oo labada shirkadood isku xirayo dalabka noo soo dirayo waxyaabaha anaga activities-keena waxaa waaye inaan laabkood iibino inaan brand sameyno inaan delivery sameyno geyno maxaa anaga yacni nagula xunana preposition-keena waxaa waaye yacni in qofku uu helayo wax infectionkaas ama contaminationka ka hortagayo kale customerka inaan la macaamilmo inaa yani discount u sameyno festivaleska ayaa u sameyn doonaa segmentigeena hore usoo sheegnay cost structure-keena waxaa waaye product iyo branding iyo rent iyo salary iyo sales labkood saa lacagta ka helaynaa next
waxaan rajeynaya inaan guulaysano saa baahidaas badan ee jirto aa u daboolno insha allah waa mahadsantihin waa mahadsan tahay axmed maxamed xasan adigu ma dhakhtar baa tahay maya laakiin bahda caafimaadka ku jira shaybaara bartay sidoo kale waxaa bartay diploma pharmacology okay dharka miyaad tolaysaan mise isagoo diyaarsan baa keenaysaan dharka stageka hore isagoo diyaarsan oo zees walba laa keenina sidoo kale next waxaa noogu xigay inaa materialka aan la imaano haddaba qiimaheedii wax dhan waa la ogaaday materialka inaa keen laakiin waxaan ku hormaraynaa inaa yacni asagoo zees walba leh inaa iibin okay marka la joogay tractionkaaga saddexda productiga ku keenaysaan macnaha alaab diyaarsan baad keenaysaan kusoo iibinaysaan 3,000 ha alaab diyaarsan aa keenaha laabkood diyaarsan laabkood diyaarsan ha oo zees walba leh oo sees walba leh oo comfortable ah waay waxaad sheegtay inaad brandi ku samayn doontaan marka hadday diyaarsan yihiin see brandi ugu samaynaysaan maya waxba kuma qorno macnaha adiga waxba ku qoranayn lakiin magacay waxaa lagu qoraa loogada loo saara oo waxaa oo institution sticker ahaan mise waa maya caadiga lagu qoraa ma lagu tolayaa waa mashiinada ku xiranta ama ha lagu tolo ama ha lagu buufiyo laakiin idinku see ugu tala gasheen annaga waxaa u talagalnay mashiinka hadda aan ku qiimeynay 500 waxaa waaye waa heat printkii ya kii kuleelka ku dhajinay miya ha kii magaca ku qoray waay iyo loogada brandi mashiinka waay waa mahadsanta axmed aada u mahadsan tahay waxaa raba inaan ku weydiiyo saa ka warqabna isbitaalada badanaa labkoodka waxay kaga isticmaal badan yihiin uniform qaas u ah kalkaal oo kale haddaa fiirisid dhar dress qaasay leeyihiin haddii loo fiiriyo nursingka haddii loo fiiriyo dhaqaatiirta sidoo in isbitaal wuxuu leeyahay dress qaas ah kuwaas maxaa u qorshayseen mise labkood bisa rabtiin inaa iibsiin may anaga waxaa u qorsheenay qof kasta asoo dress haysta haddana wuxuu ku qasban yahay ama majority waxay tahay labkood inuu haystaan xafiiskiisa muhiim ah soo dhaqtarka waxaa arkaya asoo dhar buluug wato kale uniform ah haddana yacni labkood inuu haysto magaciisa iyo loogada ay ku qoran tahay ayadana muhiim waay see ugu qancinay laakiin adi muhiim waaba og tahay laakiin inuu ayaga qorshaha ugu jirnaa laga yaabaa see adi ugu qancinay marka inay labkoodkas qaataan tiimkeena saa ka arkaysid tiim waxaa ku jiro oo bahda caafimaadka badan oo isbitaallo c o iska ah ama maamulyaalka ah soo annaga waxaa fursad u haysanaa maadaama tiim noocaas aan ku xirinahnay inaan ku qancino ajaanas u haysanaa annaga waxaan aaminsanahay inaan ku qanci karno qofka asoo uniform haysto laabkoodka inuu qaato soo uniformka inta badan waxaa waaye gacantuu ku egyahay contaminationka iyo waxyaaba noocaas xataa inta badan ma difaaci karo laakiin waxaa u suurtagelinaynaa inaan ku qancino in maadaama laabkoodka ilaa gacmaha uu xiraayo oo dharka xataa yani ilaa ay jilbaha meelahaas ku daboolayo yani inay saas yani ugu qancaan aan rajeyna insha allah بسم الله أحمد وما سنتهاي سؤال كودينا وحيد تهاي إنه حنا شاكتين إن أيدين كسود دكسين إنسان إن لابكود جدا إن وحاجر ضدك قار يعني مريها ويكل دويين قار وحاجر ججواها يقفك يعني already أسبوعي أنت أقدر نوضا نمبا سبدلها ججواها قارنا وحاجر فرد أن كبا بإينين يعني إن تاسو كلام حايد إن كذا قرشيسن تسكن تينك وحاجر إن سايسكا قف يعني قف البحور قاب أسيق جونيوه إن كيفية نوع وقنعين كرتين يعني قف كادو سايس لأج وايو إن ما دي بهوينا أقسم يعني سان أساس لك بوينا يبو سو هذا مركز سوق التكتيت دركا وقت قانا أساس كيس حتى هذا أكون وأسكو كأنه ما تنو وأسكو جميلة إن أن في اللي جهلتي ما دام أكو جرنا وحاجرنا بكودي أسوق قدنا كدبنا هرقانا دي على أدنى إنا يعني دي بهوين قسمينه لحدها هات أم قعبيها هات يعني جاب كاسوق كله كواس انت كسوي بس إن ميله لقو إيبيو كودي هاي marka yani maxay idin kaga qorshaysan gaabkaas oo kale hadduu dhaco anaga waxaa la imaanaya dhan different ses waay mal maqla different sesses waay waxaa la imaanaya dhan waxaa waa different sesses waay soo had jaakad markaa rabto inaad soo iibsatid yani different ses aa loo helaa seeskaa rabta adaa dooranaya adaa yani aa samaysanayo ninkasti qofka dooq yani laabkoodka dooq badan ma lahan wax xaraka maaha macnaha wax xaraka inta badan maahan soo saan igu tolay inta igu qurxi iyo inta badan ma lahan waa laga yaabaa meel qalin la geli iyo jaabka dhinacaan igu sameeyo kale ama si fiican igu istaaji in saas la dhaho laakiin dooq badan oo lagu xarakoodo laabkoodka yani oo qofka sidii dharka caadiga u dooqan karo ma lahan soo annaga waxaa noo qorshaysan zees kala duwan inaan keenno oo dadka ay ka iibino soo zeeskaaga inaa ka dhex heshaa laga yaabaa kuwaas laabkoodka nin inaag marka isku design ma u keenaysiin may isku design ma loo keenayo womankana waxaa woman laabkoodaa jiro iyo min laabkoodsaa jiraan waa mahadsan tahay marka yani taas waxaa ka cad qofka hadduu ku qanci waayo saaskii asi la ekaa saaskiisa waaye haddana usii baaday in lasii qurxiyo yani idinka inaadan qurxin karin oo qofka banaanka uu kasoo qurxisana qofka zeeskiisa soo uu qanci weynaa zeeskiisa oo meesha ka helaa yani
qofka يعني- hadduu zeeskiis ka dhayn wuu iska bedelaa zeeskiis oo qaadana saaskiis hadduu waayo saas kale eg qofka yacni uu rabo in gacmihii laga yacni loo saxo ama Aha. gacmaha uu siduu rabay Aha. dad waxaa jira spaceka gacmaha meeshuu u jooga xataa aanan rabin in laga weyneeyo ama laga yareeyo keefiye noocay u xalinaysaan yani waa waxaa u sababta direysaan qof sababta oo harqaanla ah sababta ah 9% aan u dhignay in adeegan loo qanco waaye 1%gaas waxaan rabnaa inaan ku xalino waxa soo laabta inaan ka dhigno toliin yani next step على فكرة marka toliinka idinka agtiina ma laga helaa ha mise baraha ku aadaa qofka materialka keensana intaa ku toleen waa su-aasha doonaya jawaabteeda waa mahadsantahay maasantaa shukr aad waa mahadsantihiin hal su-aal ah maadaama target customerskaaga ama dadka aad rabtid ay tiradooda kooban tahay when it compare to other businesses sidee rabtaa inaad ku gaartid oo macaamiishaada ku heshid ani ma arkin inay kooban tahay sababtoo ah jaamacadaha muqdisho ku yaalo kuliyadaha ugu badan caafimaad waaye soo caafimaadka arday kasta wuxuu ku qasban yahay inuu dharkaas qaato ku qasban yahay laabkoodka xataa waxaa la ku yaabaa khasban yihiin waa ognahay laakiin adigu sidee ku gaaraysaa adigu maxaa wadooyinkee u maraysaa kanaliskee u maraysaa saa dadkaa u heshid waxaa journalistka waxay ku qoran yihiin business canvaska haddii dib looga laaban karo ama koraan ka sheegi karnaa journalistka waxaa waaye qofki inuu si toos noola soo xiriiro na soo waco ama social media nagala soo xiriiro ama yacni inaa meeshuu jooga u tagnaba hadduuna soo waco aad iyo aad weliba waxaan rajaynaynaa annaga jaamacadaha maamulada inaan u tagno aan ku qancino inaa yacni laabkood ka iibino oo loogadii waxa dhan free ugu saaro taa ugu dambaysa xogga saara waa mahadsantahay aad waa mahadsantahay shukran magacaygu waa cabdinaasir abduqaadir saalax shirkadeedu magaceedu waa muqdisho team protocol waa shirkad ka shaqeyn doonta nidaaminta munaasabadaha team protocol waxaan u rajeynayaa insha allah faa'iidada koowaad waxaan u mahadcelinayaa astaan t v rsab oo fursaddan noo siiyey in fikradeyna aan soo bandhigno maalgelin aan u helno ama kaalin aan ku galno waan u mahadcelinayaa hore magacaygu waa cabdinaasir abduqaadir saalax ilaaha maxad iska leh oo barnaamijkan noo suurtageliyey astaan t v oo mahadcelinaya rsab oo fursaddan na siisay shirkadeedu waa muqdisho team protocol muqdisho team protocol waa shirkad si gaara ugu shaqeyn doonta nidaaminta munaasabadaha waxaan qaban doonaa soo dhoweynta martida kala duwan ee munaasabadda si aan ugu sameyno hab maamuus fadhi isla markaana waxaynu ugu shaqeyn doonaa in munaasabadda jabi degan ku bilaabato kuna dhammaato ma jirto koox si gaara uga shaqeyso nidaaminta munaasabadaha team protocol balse waxaan aragnaa in cid walba oo munaasabad dhiganayso ha ahaadaan jaamacado shirkado iyo wixii la mid ah shaqaalahooda ama ardaydooda inay ka dhigtaan team protocol taasoo laga yaabo in xafladda ay ka dhigi karto mid aan qurxooneyn habsami u socodkeeda maadaama ay suurtagal tahay in kooxda loo dhiibay nidaaminta munaasabadda aysan u lahayn aqoontii iyo khibraddii loo baahnaa sidaa daraaddeed xafladina quruxdeeda iyo maamuuskeeda waa nidaaminta protocol team inaan noqono shirkad si gaara ugu shaqeyn doonta nidaaminta munaasabad team protocol anagoo adeegsanayna dhalinyaro firfircoon una tababaran nidaaminta munaasabadda tusaale haddii cidda xafladda qabsanayso ay heli karto shirkad si gaara uga shaqeyso nidaaminta xafladda aqoonna u leh una tababaran kama welweli doonto cidda ay u xil saaran lahaayeen nidaaminta munaasabadooda traction and key numbers munaasabadaha aynu nidaamintooda xafladaha qaadano waxaynu u kala saari doonaa labo munaasabada waaweyn iyo kuwa yaryar munaasabadaha yaryar waxaan adeegsan doonaa ugu yaraan 5 shaqaale oo isugu jira rag iyo dumar iyo hogaamiyadu ku jiro waxaana macaamiishu ugu adeegi doonaa qiimo jaban oo macquul ah halka munaasabadaha waaweyn aan ugu talagalnay 8 qof oo isugu jira rag iyo dumar iyo hogaamiyadu ku jiro waxaan ugu adeegi doonaa qiimo jaban oo macquul ah waa laba qiimo oo kala duwan ilaa ay hadda ma jirto baaritaan iyo taxliil aynu sameynay shirkad si gaar ah ugu shaqeysa nidaaminta protocol team sida muqdisho protocol team sidaa daraaddeed fursadda suuqa waa mid aad u sareyso aan rajaynayo inaan ku guuleysan doono baahida dawladdaas competitive advantage sida aan kol hore soo ogaanay ma jirto shirkad qabato adeeg aynu qabano oo adeeg tayo sare leh qiimo jaban balse aan raaciyo yar oo barnaamijka ka mid ah wuxuu ii sheegay inay jirto shirkad oo dhammaan isku qaadato nidaaminta xafladda iyo weliba isku qaadato guud ahaan xafladda laakiin waxaan kaga duwanaa inaan nahay shirkad si gaara timbarta xafladda maamuuskeeda ugu xil saaran team and key partners
howlwadeenadeen aan hadda aan rabno inaan shirkadda ku bilaawno waxay gaarayaan 5 wiil iyo 3 gabdhood balse waxaan rajeynaya inaan ka sii badino 10 ilaa 20 iyo ka badan waxaan ku dhisnaan doonaa gudoomiye ku-xigeen xoghaye ana madaxa xafiis shirkadda suuqgeeye inta kale waa shaqaalaha caadiga fundraising interaction lacagaha ilaa iyo $5,000 ugu yaraan ayaynu u baahannahay inaan ku maalgelino shirkaddeena lacagaha sida ay ku kala baxayso kuwa xafiis ay shirkadda ku shaqayso qalabeyntiisa lambarfooda xarunta lagala soo xiriiro 2 uniform u gaara tiimka oo 2 ilaa 3 gaaraya mikrofoonada u gaarka tiim protocolka iyo camero oo lagu duubo shirkadda shaqadeeda in daafur loo sameeyo baraha bulshada xoogga saaran xayeysiin bijijka caanka aan ku baahino shaqada aynu qabno si bulshada si fudud shirkaddeena u gaarto si ay nala soo xiriiraan lambar 5 in howlwadeenada shirkadda ay helaan seminaaro tababaro la xiriira protocol team si tababarkaas aan u helno waxaynu u baahannahay macallimiin xirfadlayaal ah high professional oo naga caawito tababarada howladeena sida ustaad baaf oo kale business model canvas af Soomaali qodobkan ka dhigay in baraha bulshada xoogga saarno si bulshada adeegan u gaaro inaan buuxino baayaha team protocol ee loo qabay ee jiray in hoteelada si gaar ah ula shaqayno maadaama xafladaha inta badan ay ka dhacaan inaan yareyno shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta oo aan qaadin dhalinyaro fara badan in ay helaan tababaro la xiriira shaqaalaheena howlwadeenada waxaan nahay shirkad si gaar ah uga shaqayn doonta nidaaminta xafladaha waxaanu u shaqayn doonaa cid walba oo munaasabad dhiganayso waxaan yeelan doonaa page Facebook iyo number inoo gaar ah summary anagu ka faa'iideysanayna awooddiina dhallinyarnimo khibraddeena iyo aqoonteena la abuur waxaan doonaynaa inaan uga faa'iideysano dalkeena iyo dadkeena baahiyaha ay u qabaan adeega nidaaminta munaasabadda waxaan ka qayb qaadan doonaa shaqo abuurka dhallinyarada dalka iyo jiilka soo koraya hadduu alla idmo waxaan soo dhoweyn doonaa talooyinka muhiimka oo ay nala wadaagaan bulshadeena Soomaaliyeed ee waxgalka ah good bismillah cabdinaasir waa mahadsan tahay sidaa sheegtay munaasabadaha ayaad qaban doontaan markaad nidaamintooda markaad doorkiinu ma wuxuu noqonayaa un goobta iyo qurxinteeda mise waa wax kasii ballaarsan may doorkiinu waa keliya inta munaasabadda ay socoto in jabi degan ay munaasabadda ku bilaabato kuna dhamaato keliyaan ka shaqayn doona macnaha meesha ma hagaajinteeda may jabiga xafladda leebis dadka soo socodka inaan yarayno nidaaminta leebis macnaha dhexmara inaan joojino inaan buuqa yarayno keliya nidaaminta xidhiidhinta iyo xidhiidhinta waa baab gooni ah okay waa shaqo kale dadaa ku shaqaysta xirfaddu ay tahay okay marka dadkun baad kala fadhiisinaysaan yes waa baahi jirto loo baahan yahay ayna aragnay fursaddaas dhowr xafladooda ka qayb galay saasaan ku dareemay inay jirto baahidaas waay hoteelada xidhiidhka ay yeelanaysaan maxay noqonaysaa waxaa waaye in hoteelada si gaar ah ula shaqayno inaan u tagno shirkad ahaan ugu tagno aan dhahno adeegaana hayna qofka markuu noo imaado tusaale ahaan uu rabo inuu hoolka ijaarto inaad dhahdaan team protocol jiro oo xafladiina nidaaminteed ka shaqaynayo intaas ay ku shaqeeyaan ama inuu lacagta hoolka ay ku kor daraan percentage ugu ogolaan labada meel inaa percentage ugu ogolaan laakiin siyaasad inay kama degan in ama isaga lacagta ka rabtaan ama aad macmiil ka rabtaan may labadaba haddii hotelka oo dhaho hotelka aan ka dhamaysan inuu lacagtan ugu kor daraan waa percentage aan ogolan lahay haddii ay dhahaan team protocol jir la xiriira in la soo xiriirina percentage labadaba waa ogolan lahay hotelka meeqaad ku dalacaysaan xafladii 20 oo kale xafladii anaga waxaa ugu talagalnay xaflad weyn miya mise xaflad yar inuu kala saaran ka soo qaad mid walba mid taweyn mid tan weyn waxaa ugu talagalnay $100 tan yarna $80 yes okay marka hotelka haddii uu yidhaahna in siinaya isaga ka qaadanaysan haddii kalena qofkii macmiilkii baa raadinaysaa sidaas baraha bulshada aan ku faafi karnaa shaqadiina fududahay shaqooyinka aan qabano tusaale beejka alleen oo kale waxaan ku baahinayna mar walba shaqada aan soo qabanay iyo xafladda aan soo qabanay soo dhigaynaa si bulshada su-aashadii ugu dambaysa waxay tahay ma labis gaar maxaa dadka labis gaar ay yeelanaysaan miya oo yes team protocol waa qasab in dhar gooni oo qurux badan inay yeeshaan si bulshada uu soo jiidato dadka munaasabadaha dhiganaya xafladda quruxdeeda waa team protocolka hadduu diyaarsan yahay xafladdana quruxdeeda asaa ka qayb qaata xafladdu intii socoto waa taagnaanaysaan yes waa taagnaanaynaa cabdinaasir aada u mahadsan tahay team protocolkiina qayb yani ma ka yahay inaad timeka manage garaysiin oo xafladda waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga ay dhammaanayso mise waxay ku xiran tahay bis dadka xafladda kasoo qayb galalaya inaa kala aamusisiin oo kala dejisiin mise time managementiga oo xafladda waqtiga uu soconayo waqtiga uu bilaabanayo qorshaha mid kugu jiraa qorshaas iguma jiro keliya waxaa waa in dadka xafladda inaa la heshiin oo keliya anaa team protocolka nasiya
maxaa u iyaga ku qabanaysiin xiran marka tahay dadka oo imaadeen oo xafladda kasoo qayb galeen bis maa sugaysiin oo inay hadlaan inay kacaan intaas bis maa u intaas qabanaysiin waxaa xafladda ilaa ka bilaanaysa ka dhamaanaysa waa shaqaynayna anaa haddee 7 saac inay ma gaarto waa shaqaynayna yacni shaqada ay qabanaysiin maxaa waa yacni nidaaminta xafladda bis maxaa nidaaminaysiin waqtiga haddaa la qabaneyn in waqtiga shaqo ma kuleyn waqtiga waxaa nidaamintooda leh ninka xafladda qabsanayo aa waqti shaqo u leh marka adika waxaa waaye anaga la tala dadkaas- ahaan waa sii karna inaan dhahno waqtiga ugu qurux badan waxaa waaye laakiin adika waxaa qabanaysiin dadka meesha kasoo qayb galeen inay fadhiisiin hadalka la yareeyo inaan fadhiisino nin walba meesha loogu talagalay tusaale adi madaxda inaan hor fadhiisino dadka kale ninba meesha loogu talagalay fadhiisino dad oo waxaa jira aad u madax adag oo kale qofaa aamus dhahdo oo kale inuu kula dagaalo oo kale maxaa markaas camal maxaa sameyn lahaydeen maxaa idinkaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan tusaale bini aadankan isku mid ma aha anaga horta inaan dul qaadano si walbo haddii qofka si walbo isku xanaajiya xataa inaan dejino abuu macaanow inta xaflad socoto nagu qaada camal aroosyadoo kale dadku waxay u kala fadhiistaan laba qaybood see ku kala garanaysaan waxaa kula fahmaynaa anaga dadka barnaamijka noo soo sheegaya qaybtan wiilasha iska leh qaybtan wiilka ku socda camal laba cidood baa loo kala laba cidood micnaha qaybtan wiilka dhanka wiilka waa nala dhihi doonaa waxaan ka rabnaa dadka oo markaas anaga u shaqaynayna aan kala sheegi doono kadib waa kala marka qof aan matalan odaygii meesha laga rabay inuu hore fadhiisto kale dad xagga dambe fadhiisto siyaasiyiintii hormariso kale ka war may anaga mar walba waa ilaalin doonaa nidaamka magaca weydiin doontaan waa magacaaga dadka waxaan ka rabnaa ninka qofka xafladda aan kala soo heshiina waxaan leenahay dadka ku casuumtay noo sheeg oo madaxda ah si hor usoo fadhiisan arooska noo sheeg aroos tahay diiwaangelinta waxaa jira marka xafladaha laftigooda brotocoolka waxaa qayb ka ah in marka lasoo gelayo kale marmarka ay event weyn yahay in dadka la diiwaangeliyo shaqada ma ku darsanaysaan mise idinku waa albaabka hoolka marka laga soo galo wixiina waa ku darsanayna oo in la diiwaangeliyana waa ku soo darsanaysaan galaayo ama infitooyinka laga qaado oo kale waa ku darsanaysaan darsanayna waa mahadsantahay بسم الله عبد الرحمن ما سنتهاي عبد الناصر عبد الناصر ما سنتهاي عفوا إن يعني هوتيلada magaalada ka jira ama meel walba barnaamij event ka dhacayo ama eventyada waaweyn magaalada la qabto waxaa jiro team hore uga soo shaqayn jira oo protocol ah in maadaama ay joogaan tiimamkaas ay jiraan kayfiye noocee ugu qancin doontaan yani marka u tagtiin dadka eventyada qaba ama hoteelada in idinka yani aad tihiin dad profitable ah oo tiimamkii hore ka duwan kayfiyada ugu qancin doontaan waxaa ugu qancin doonaa horta waxaan ugu dumannahay weli dad si gaar hoteelada ula shaqeyn ma jiro annaga si gaar hoteelada u shaqeyn doona tusaale dadkan kale oo tiim protocolada waa dad isku qaatay protocol kelima waxay qaataan macna xafladda wixii ku bixi lahaa 3 maalin kor qorshe waxna qaataan laakiin anaga waxaan nahay kaliya dadka nidaaminta xafladda ku shaqo leh waana baahi jirto qofka xaflad degdeg ah dhici karto oo tomorrow la rabo kale tiim kale la soo xiriira waa tomorrow waa tagaynaa maalintaas nidaaminta ka qayb qaadanayna gartay yani baahiyaha jira markaan kasoo tagno yani eventyaa jira magaalada la qabto camal oo waaweyn eventyadaasna sanado hore ay dhicin waxaa jira tiim protocol ka shaqayn jiray tiimamkaas maxaa kaga duwantihiin aad ku qancinaysaan eventyadaas daartii inaad ka qayb qaadataan waxaan kaga duwannahay in aan nahay inaan qiimaha u ka yaryahay lacagta tusaale aan yareeno iyo in adeeg qurux badan iyo labis qurux badan micnaha inaan ka duwanno wax qurux badan la imaano يعني إنك تيسر تدد هنا بروفيشنال هول تيسر لي بروفيشنال اوكي وما سنت magacaygu waxaa waaye maxamed cabdulaahi waxaa ka socdaa kambaniga koriye wuxuu isku dayaa inuu xaliyo problem ka jiro oo caruurta tusaalaha markay waalidka weydiiyaan telefonka iyo dhiib waalidka waxa waa asagoonan ka fiirsanin badanaa waalidiinta u dhiibaan ayagoo isku daya inay ku mashquuliyaan laakiin caruurtaas waxay isticmaaleen iyo waxay daawadeen lama ogo problem jiro waaye ana marka waxaan rabnaa inaan xalin arrintaas oo waalidku awood u yeesho inuu dhihi karo hoo telefonkayga isticmaal waxaa isticmaasha applicationka ladaha koriye marka ilmaha wuxuu ka heli doonaa casharo wuxuu ka heli doonaa kartoomo fiirsado wuxuu ka heli doonaa games uu ciyaaro wuxuu heli doonaa quiz laga qaado leader badaa jiri doono report waxaa jira waalidka isbuuc dhammaadkiisa uu heli doono tartamo quraan la qaban doono wax badanaa jira marka waa platform dhammaystiran oo aan rabnaa carruurta inaan ku mashquulina waxna ay ka faa'iidaan targetkan waxa waaye carruurta jirto 3 sano ilaa 7 sano kuwa xanaanooyinka dhigtaan si maskaxdooda ay u kobciyaan xirfadaha loo baahan yahay qarniga kale talaad ay bartaan si wadankooda iyo diintooda ay u anfacaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحوا محمد عبد الله قاسم ما أنتم حسوا جيدين دونا كوريا كوريا مركا هورا وحارب شكرنا كبلابو شكل وحواي وحاجري هوي ويلكي ذا أكسو قادين لدو أحمدي فاضمة أحمد تلافك واستعمال جري المير واي حنانو ديجن جري
qiso dhacday waaye xanaanada soo dhiganaya waxaa la arki jira mar kasta uu oyn jira macnaha ninka xanaanada maamulaha ka ahaa wuu yaabay wuu isweydiiyey nina saaxiibiyiinu la tashatay markii la baaro waxaa la ogaaday axmed teleefon isticmaali jiray oo hooyadiisa leedahay youtube uu geli jiray wuxuu fiirsan jiray kanaal soo dhigaya wax kartoon u eg laakiin kartoon wuu yahay laakiin wuxuu wada fariimo aad u xun macnaha asaga ma fahmi karo iska fiirsan jiray heer waxay gaartay uu markasta ooyo xataa mar waxaa la sheegay xataa uu mindi u qaatay darawalka markasta uu qaada baska ilmo yar waay waxaasna waa dareemi kartaa halistay leedahay marka anaga badankeen meeshaan fadhino carruur badana qaarkeen waalidiin waa laga yaaba qaarkeen walaalo waaye ilmaha waxuu ku weydiinaya teleefonkaaga dhiib waa u dhiibay oo askaga mashquulinaya laakiin waxa uu isticmaalay wuxuu arkay allahu aclam ma ogid marka next introductionka marka waxaa rabnaa ECD waxa waa early child development waa ilmaha yar oo iskoolka aan la geenina ka shaqeyn horumarintiisa platform dhammaystiran oo siinaayo waxbarashada u baahnaa sidoo kalena siinaayo entertainment uu ka heli karo ilmaha markaas xanaanada la geeyey iyo kuwa aan la geeyin labadaba missionkeena waxa waaye not only Somalia laakiin Muslim world inaa gaarno laakiin hadda Soomaaliya ka bilaabayna next problemka midkaada soo sheegay waa mid kale waxaa jiro carruurta badan technology isticmaalaan mid kale hadda waxaa u malaysaa xilli waxaa noolnahay oo moralka iyo valueska aad ay u dhumaayaan marka labadaas ayagoo jiraan mana jiro sidoo kale carruurta macnaha qaab oo waxbarashada u baahan yihiin oo personalizedka target ma jirano marka waxaasna waa maqan yihiin fursad waaye next waxaa la sheegay covid-19 waxaa ka dambeeyey isticmaalka technologiyada aad ay u bateen khaasatan dhinaca carruurta nambaradana u jeednaa next solutionka marka waxa waaye in la sameeyo ECD platform oo sameynayo carruurtaas ku beeraya islamic moral values entertainment siinayo waxbarasho siinayo maskaxdooda kobcinayo skillska loo baahan yahay qarniga 12aad siinayo creativity problem solving waxaasoo dhan next maxaa waa waxyaabaha laga helayo quraan laga helaa meel oo cashar ay ku jiraan later tracing fartii inuu la raaci karo ilmaha inuu baran karo as loo qaraa tris loo qaraa waxaas dhan fartuu la raaca macnaa uu baranaa for next quiz jiraan leaderboard jiro live stream jiro next oo kuwana marka tractionkeena first year waxaa rabnaa nambarada inaan gaarno macnaha weliba hadda waxaa anaga aaminsanahay inay yar yihiin sidoo kale waxaa ujeedaa revenuegeenu intaas yahay waxaa dhan marka waa dhow waa ka hadli karnaa next saddex balaanaa jirto mid basic iyo mid family iyo mid annual leh so next waxaa ujeednaa shanta sano soo socoto industrygan oo educational technology waxaa ujeednaa macnaha ugu yaraan laba jibaara ku dhici doono marka waxaa ujeedaa 2020 meesha iyo meesha la filanayo number weyn waa next China kala fiiri 2019 meeqaha maalgashanayaan meeshaan 3.9 waa hal sano gudaheed meeqa gaareen fiiri 10.2 waa macnaha waa aad u weyn yahay waxa waaye baahida aad u soo karrat macnaha wadamadaas anaga intee joognaa marka next sectorka ugu badan la maalgashto waxa waaye K12ka anaga targetkeena marka meeshaas uu ku jiraa next Soomaaliya waa meel aad u banaan waaye oo marketka aad u banaan sababtoo khadka aad loo isticmaalo internetka lagu wada xiran yahay dadkaas ku xiran internetkana carruur ku sii xiran oo telefoonka ay ku mashquulaan u dhiibaan soo marka problemku jiraa fursaddan way jirtaa next anaga kuwana lamida ma jiraan ha freed waxaa jiro iyo daaris laakiin wax badan ugu duwannahay oo anaga waxaa leenahay tusaalahaan carruurta xataa oo xanaanooyin kaleba oo kala qaadayna kuwa oo xanaanada aan la geenin iyo kuwa xanaanada dhigtaan labadaasna u fiirinaan waxyaaba u baahan yihin xataa inaa material ku habboon oo cashare inaan soo gelino waxaa jiri doono games quizzes competitions waxaasoo dhan way jiraan next report xataa waa jira oo waalidku heli doono markii usbuucaas u dhammaado tiimka kuwana aniga maxamuud iyo labadaas gabdhood sidoo kale waxaa jiro tiim kale nala shaqeyn doono laakiin anaga developmentka labadeena qaabilsan xabiibi cadnan waxay qaabilsan yihiin qaybta macallimiinta iyo casharadii iyo ilmaha qur-aanka in la baro iyo waxaas oo dhan ay qaabilsan yihiin next so anaga meesha ugu badan waxaa nooga baxaya marketingki iyo op development waxaas waaye next waa kuwana marka business campuskeena anaga waxaa partnership la sameynaynaa xanaanooyinka iyo macallimiinta oo meelahaas joog iyo sidoo kale xataa meelaha loo tago entertainment carruurta loo geeyo beerta banaadir oo kale meelahaasina xataa ala heshiino waxyaabaa qabanayna waxa waa learning iyo development inaan sameyno value waa ujeednaa carruurta inay wax ka baranaya ayagoo la madadaalinaya tartamaa jiri doono customerka waxa waaye so waxaas o dhan way jiraan maxamuud aada umahadsan tahay waxaa rab inaan ku weydiiyey platformkiina ma tablet oo gooni maa loo isticmaalaa mise mobileka ilmaha loogu install gareynaa applicationka waxaa gelinaynaa play store hadda waxaa ku bilaabana telefoonada maadaama isticmaalku ayaga aad u badan yahay
laakiin tabletka waa asna waa diyaarinayna insha allah okay cunugii markii mobile loo dhiibo inuu applicationka isticmaalo iyo inuu meelo kala galo haddana control ma ugu baahno waalidka saa lagu Yes. xakameynaa jawaab su-aal aad u fiican waaye applicationkana qaybaha hadda oo ugu muhiimsan aan ku dari rabno waxaa ka mid ah parental control waxaan rabnaa telefonka lagu shubo application kale inuusan u shaqayn kaas le u shaqeeyo macnaha waa mahadsan tahay waxyaabaha uga duwan tahay kuwa computerka oo kula tartamaya wax yar ma noogu celin kadhaa saan u fiirino haddaan mar dib ugu laabano waxyaabaha ugu duwanna waxaa ka mid ah ayaga keliya waxay ku koobiyin cashiro yara soo geliyeen sidoo kalena game yarna waa ku jiraa laakiin anaga not application bis ma platform dhammaystiran waaye carruurta waxaa rabnaa inaan siino waxyaaba baranayaan sidoo kale waxaa jirta competitions loo qaban doono leader boodaa jira oo waxa waaye oo macnaa life eh hadda hadduu game ciyaaro ama hadduu cashirkaas qaato quiza jira su-aala laga qaada isla marka waxaa arkaa kaalintu kaga jiro applicationka dadka isticmaalaan life waa macnaha hore iska bedelay waa mahadsan tahay waalidku ma heli karaa report waalidka laftigiisu xaggee ku arkaya xogta ilmaha every week markuu dhammaado macallimiinta xataa waxaa jiri doona isbuuca dhammaadkiisa waxay qabanayaan live oo carruurta inta soo galaan la hubinaya progresskooda meeshuu maraayo so waxaas ayaga ka ogaadeen balaas wix isbuucan ay soo sameeyaan carruurta reportkaasoo dhammaystiran waalidka hore diraa uu helaa liveka meeqa maadaa ku dhigaysaan liveka waxa waaye maadooyinka kulli la dhigaayo ayagoo macnaa wixii su-aale kasoo laabto iyo carruurta in lagu jeegin kara isbuucaas ma soo dhigtaan maadooyinka ku xiranta marka intii macnaa matalan qur-aan baa ku jira qur-aanka oo kale mise qur-aanka balaas maadooyinka la dhiganayo xisaabta carabiga waxaas o dhan way ku jiraan waay adigu saad sheegtay waxaa tahay developer Yeah. applicationkan yaa kaloo ina ka caawinaya waa application ballaaran aada u wada ballaaran wey su-aal aad fiican waaye teamka horta hadda laba ku nahay developers laba kalena waxaan rajeynaya inay nagu soo biiraan isla waqti ay ugu dhamaaday waxaa ka tegay almost 48% waa dhameen applicationka okay marka meel fiican number waxaan rajeynaynaa ugu badnaan laba bilood soo socotana ku dhameeyeen haddaysan hal miyaad u baahan doontaan cid ajaanib ama ka baxsan annaga ku filan okay databaseka maxaad isticmaali doontaan halkee ku kaydinaysaan database kole online u saarnaan doonaa waxaa ku fikiraynaa hadda inaan isticmaalo mid la dhahayo mongo db oo scalable maadaama applicationka arabna dad badan isticmaalaan ma rabna inuu wax cloud base macnaha cloudkaa saaraynaa maybe inaan isticmaalo xataa aws oo amazon ay leedahay okay serfero miyay nii ooli doonaan hadda qorshaha kuma jirto laakiin haddii baahida keento waa la keenaa insha allah okay ugu dambeyn applicationkiina see uga ilaalin kartaan hackeriska iyo waxyaaba noocaas horta baahi horta oo loo soo hakin weliba cafwan qaybta lacag bixinta oo kale marka lacagta soo isaga lagu bixin maayo asaa lagu bixinaa hadda waxaa rabnaa inaan kusoo darno evc payment oo hormuud ay leedahay so marka anaga paymentga maadaama anaga aanan gacanta ku hayn hormuud shirkadda gacanta ku hayso anaga abi ayna soo siinayaan xogaa meeshaas waxaa umalaysaa doorkeena san ahayn oo ayaga doorkooda taa inay ilaaliyaan systemka marka laakiin anagana waa in waxyaa ka qaban karno waa laska kindhigayo lacag lama qaadan karo macnaha ha me lama qaadan karo maasanta magacayga waa cabdinaan maxamed ibraahim kambaniga juba company for agricultural commodities magacaaga saa ka arkaysa juba company waa company agribusiness ah kaasoo shaqadiisa ay tahay inuu focus saara ama uu diiradda saara sidii usoo saari lahaa fruit and vegetable ama khudaar iyo miro taya sare leh kuwaasoo laga kontroolay xagga qualityga iyo quantityga tiro ku filan dadkeena soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho iyo tayadii loo baahnaa nutritional value kuwaasoo clean ah lagana ilaaliyo boosarfastin lusiska iyo dhammaan wax walba side effect u keeni kara asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cadnaan maxamed ibraahim waxaan ahay hindisaha iyo asaasaha juba company for agricultural commodities juba company agricultural commodities soo magacaaba soo jeedinaya waa company agribusiness ah kaasoo xoogga saari doona inuu soo saaro khudrad leh tayo iyo tiro ku filan taasoo dabooli doonta baahiyaha khudrad xumo ee dalka jirto hadday noqoto xagga boosarfastin lusiska iyo hadday noqoto technology la-aanta next
problemska ugu badan ee aragnay waxaa weeyaan markii wax la tabca adduunka waxaa ka dhaca wax loo yaqaan climate change meelihii wax lagu beeran jiray wax lagu beeran karo inta hectare oo la tabci jirin lama tabci karo afartan qodob ayaa ugu weyn problems ku jiro lack of modern and scientific technology adduunka intaan hadda stagekan aan taagan oo kale waxaa laga soo saaraa intaasoo cunto ah hadday tahay khudrad hadday kalaba annaga ma haysano improper post harvesting management wixii lasoo guro hadduu qofkan 20 xabo qara maanta soo guro 10 ka mid ah wadada inay kusoo burburaan laga yaabo ama la iska tuuro absence of post harvesting cooling and care service ma jiro qaboojiyaal markay meel fog ka soo qaadaan kadibna ay keenayaan maxaan ku dhahay magaaladii ama suuqii ku filan oo waxay imaanayaan khudradda inta badan biyay ka kooban tahay ayagoo daxalaystay ama dhagay imaanayaan lack of assessment data losses in the post harvest xog laga qori ma jirta qofkii tabcadaha oo soo saaraha wuu khasaaray qofkii oo soo gadanaya wuu khasaaray kii gurigan wuu khasaaray oo ogtihiin markii lasoo gato khudradda waa la kala saara 50% waxaa weeyaan waa loose 50% waa baalkii next solutionkeenu wuxuu yahay afarta qodob hadda aan soo sheegno inaan xalino hadday tahay improper post harvest cooling system inaan xalino next financial ama key numberskeena kuwana waxaan u baahanahay kow laba greenhouse delivering cow with ventilation ama waxa loo yaqaan technology ku rakiban sidoo kale waxaan u baahanahay irrigation oo hadday tahay waraabki seed and nutrient iyo sidoo kale reserve inaan u dhigana kayd intaan marka labada greenhouse waxaa waaye qiimahay ku kacayaan 7500 delivery kaaga 6000 waaye oo qalabkiisa wixiisa u rakibeen frinjeer ku rakibeen oo baalkii leh waraabka 500 waaye 6 bilood ugu horeyso seedkan 500 ku caysa next intaan ayadoo table waaye hadda intaan soo sheegay next estimated and prediction haddaan sameyno tusaale ahaan labada greenhouse ee haddaan soo sheegnay waxay qaadaan waa 38 oo taasoon ka wada 30 length ah iyo 8 width ah tusaalaan waxaa loogu talagalay in lagu beero 4000 geed 4000 geed marka ku beerto waxaa loose noqon karta ama fail garoob karta cimilada is bedelaysa kuleylka jira dartood ilaa 250 geed waxaa badbaadi karta 3700 crops maadaama high demand ay yihiin halkii crop-yadan oo breediska ama saxda loo beero waxaa loogu talagalay halkii geed each plant inuu soo saaro 8000 ilaa 12000 laakiin Soomaaliya joogna wax badan iska khaldan waxaan ka soo qaadnay average kg inuu soo saari karo 6 gram kadib suuqa maanta ogtihiin halkii kg oo maxaan ku dhahay qajaar ama halkii eggplant wuxuu ka maray 1.9 iyo 2 laakiin anaga waxaan u dhufan lowest market intaas dad lagu dhufto lowest market waxaa soo baxaya marka horta tiradii geedaha ii soo badbaadaan waxaan ku dhuftay inta kg dhali karaan kadibna waxaa ii soo baxday 22 kg lowest baradaan ku dhufto waxaa waay profit ka samayn kara 22000 next marketka aan haysan aad u fiican sababtoo ah ma jiraan strategic plan oo qorshaan ku saabsan next waxyaaba aan kaga duwannahay competitive ageska greenhouse way jiraan laakiin waxaan u kala saaraynaa ilaa 3 oo research centers sida jaamacadaha kale business purpose kuwa loo sameeyey iyo kuwa construction sida dalbile iyo raas oo kale next teamkeena waa kuwana head of production head of technical management head of market and social coordinator iyo head of finance and investment promoter next lacagaha meelaha naga soo geli karaan ama saan ku urursan karna maadaama dad raba inay tacab galaan aan nahay 5000 inaan anaga jaabkeena ownerska aan familki iyo 5000 oo qardo xasan aan u xisaabinay 5000 inaan dadkeena iyo maxaan ku dhahay bangiyada wax bixiyo corporate fund aan ku sameeyay next business model canvaskeena waa kana waxaan xiriir la leenahay agricultural companies hadday tahay seeds hadday tahay wax walba oo iibiyaan inaan ka soo iibsano waxaan proposition value uu yahay inaan soo saarno khudaar free ah aanan lahayn contamination aan lahayn clean wax walbana ka dhameystiran tahay key activitieskeeda waxaa creation and planning of ecosystem inaan abuurno environment taasoo bixinaysa customerskeena customer segmentiga ugu muhiimsan haddaa imaano waxaa weeyaan annaga waxaan sameynaa waxa loo yaqaan strategic plan of market tusaale ahaan wax inaan isku soo gadno suuqa ma geynin waxaan la xiriirinaa hotelska restaurantska homeska iyo open marketska waxaan isticmaali doonaa mobile application qofka uu kasoo dalbanayo kadibna anagoo gaarigeena khudraddeena ay qabowdahay nadiifay tahay au geyn doona next gabagabadeena waxaa weeyaan final waxaan rajeynaynaa in post harvesting toolinka aan horumarino productionka inaan dhiirigelino beeraleyda inaan taageerno high yield varieties iyo drought resistance inaan soo saarno rajo ahaan waxaan ku rajoonaynaa fikraddeena maadaama ay tahay fikrad dalka anfacayso oo national issue ah insha allah inaan wax badan aan ka qabanno qardo xasankii hadda fikradda aan sheegin aan samayno next haddaa fikraddeena intay ka guulaysato day guule thank you cadnaan aad u mahadsan tahay qudaarta aad rabtiin inaa beertiin maxaa ka mid ah khudaarta aan rabna inaan beerno waxaa ka mid ah qajaarka kale kokombarka waxaa loo yaqaano yaanyadoo kale simirsaanta ka mid ah inkastoo hadda inaan hordhac haddana su-aashaas hadda ay u keentay
waxaa ka mid ah egg balantiska oo kale waxaa ka mid ah barbarooniga aaday u badan tahay khudradda aan rabin wax kasta oo looga baahan yahay dalka khudradahaas inaan horticultural products waxa loo yaqaan inaan beerna anaga go-an horticulture waxaa macnaha qayb ornamentaliska iyo spiceska ma soo galayaan xagga waxa la cunaa ka hadlayna waxa wax loo qurxiyay landscape kama hadlayna horticultureka laba loo kala qaybiyaa qaar waa ubaxyadii flowerki oo landscape-ka loo isticmaala kaas xaggayga dhig waxma qurxinayn wax la cunaa is soo saarayna marka waa khudradii kuwa hadda aan tiriyaa ka mid ah haa crops waay good inkala cadnaanow saan ogna beeraleydu waxay isticmaalaan sun ay ku buufiyaan ama ay ku bacrimiyaan cayaanka uga ilaaliyaan ma isticmaali doontaan sun hal mar waxaa codsanaya inay igu celiso qaybta oo market competitive agents meeshay ku xusan tahay waxaa jirto chemicalka marka laga hadlaayo labaa loo kala isticmaalaa waa organic iyo inorganic annaga productigeena waxaa waaye waxyaabaha oo intay ku xusan tahay organic products waxaa la lahaa wax kasta oo chemical laga ilaaliyo 95% waxaan isticmaalaynaa saaxiibkii cabdiraxiin fadhiyo oo daraad inta ka tartamay composku soo saara manyorki waxyaabaha food scraps soo haray oo friendly environment-ga dhulka la deegaanka aan is dhibaateynin sababtoo ah waxaa laga yaabaa haddaan sun isticmaalo oo maanta markaan sun ku buufiyo dalagii oo weli sumaysan kiimikada jirkeeda ku jirto beri suuq fiican lii sheega aniga adig kuma ogi inaad isticmaalayso shilinkaas inaan fiirso waxaa laga yaabaa aan soo guro waxyaabaha ugu badan kansarka baalka inflatoxin keenan maanta ka mid tahay si marka dadkeena iyo deegaankeena maadaama national issue u taagan aan u badbaadino waxaan isticmaalayna organic product 90%. haddaa u baahataa inaad isticmaashaan cabirkeeda ma taqaaniin cabirkeeda waa naqaanaa waxaa jirta waxa la integrated pest management ama IBM kaas waxaa iskulu jiro cultural biological inaan isticmaalno iyo tiyaada aan isticmaalaya chemicalka markaas wax yaraa looga daraa sida baalkii baashaan loo yaqaan NPK-da oo nitrogenka iyo phosphor kuwaas oo kale inaan wax yar qadarka isticmaalo macquul laakiin wax chemical ma soo wada saareen ugu dambeyn su-aashan weydiin waxay tahay alaabtiin waa cash crop saad sheegtay store bal ma aha muddo badan ma jiri karto haddii ay kugu soo noqoto store ma inii qorshaysanta inaad meel store u samaysaan oo ku kaydisaan businesskeena faces uu yeelan doonaa laakiin hadda face ugu horeeyo anaga waxaan sameynaynaa strategic market aan leenahay maadaama head of market and coordinator aan leenahay business segmentskeena waxaa ka mid ah hadday kugu soo laabato kale hadday dalabkii laga wada qaadan waayo waxaan isticmaali doonaa cooling aan baleenahayba qaboojiyo kale 3 beri 4 beri inuu i kaydiyo waxayga ninka maanta bakaaro qoraxda u taala ka fiicanahay muddo dheer i gaari kartaa mahadsantahay thank you بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم dardaaranka horena waa maqasheen waana la fadhisayn waxaad in kula dardaarmaynaa inaad dadaalka halkiisa kasii wadaan business qofku waa sameynaa markuu dhaho wuxuu u baahan yahay sabir badan iyo dadaal badan challengeyo badan waa la kulmaysaan marka ay idinka noqonin bilaha ugu horeeyay catafe ina idin qaado aad dhahdiin waxaan ma soconayay iska sii daaya u dhowr adeega insha allah dadaalkiina halkiina kasii wada guuleysta asalaamu calaykum intii hore haddaa maqlayseen waxaan isleeyahay wax lagu daro buuran ma jiraan laakiin keliya waxaan idinka codsanaynaa waa codsi inta aan soo bixinay inay ma aragtay kusii dhiirato oo brogaraamkan meelo badan oo kala gaarsiiso maadaama qorshihii ganacsi u diyaarsan yahay baashinkii iyo awooddiina la hayo inaan laga quusan haddii marka fursado kaloo dheeriya aan helo iyo hadda qolyahaasna leh haddii fikrado gadmaya ay jiraan nala soo wadaaga bangiyadan inaa noo timaadaan xafiisadan nagu soo booqataan aada u mahadsantihiin waxaa rabaa ana inaad kula dardaarmo mar walbo inaa ab ahaatiin oo kalsoonidiina ay dhisnaato si walba oo guddiga ay idin kala reebaan inaa naftiina adig u sacbisiin oo dhahdeen howl fiicanaa wadaa howshiina ka quusanin guulaan idin rajeynaa maasha allah sidoo kale waxaan sii raacinaynaa in dadaalka halkaa ka wadaan qof kastaa u guuleystaysaan markii horena sheegnay waxaan gelaynaa mirna u horreysay oo art supply store u tartamaysay 73.75 adna cabdi xirsi 74.5 أحمد محمد حسن 73.25 عبد الناصر عبد القادر صالح 64 محمد عبد الله قاسم 66.5 عدنان
محمود ها محمود سديتني تضرب دبع شن عدنان تضبطني لبر دبع لباتني شن سلام مركا waxaa ku soo baxay maxamuud oo kaalinta ku soo baxay 8.5 oo watay barnaamijka Korea Company adna oo ku soo baxday oo wadatay switch ICT groupkii gabdhaha ahaa 74.5 iyo art supply store midna oo soo baxay 73.35 ama santiin